aad ay u xanuun badan tahay inaad boos ku yeelato qof qalbigiisa laakiin aadan ku yeelan noloshiisa. si dhab ah ayaan u garanayaa dareenka macaan ee ay leedahay in ugu dambeyntii aad hesho qofkii qalbigaagu raadinaya ee ku habboonaa, qof kuu noqda saaxiib marka aad u baahato saaxiib, kuu noqda garab iyo gaashaan marka aad u baahato cid iskaa garab istaagta, kuu noqda bakoorad marka aad u baahato wax aad ku tiirsato, qof aad agtiisa ku dareento ammaan buuxa oo aadan hore u soo dhadhaminin. saaxiib ma naqaano qiimaha dhabta ah ee waxa aynu u jeelannahay, yacni u xiisa qabno ilaa aynu helno mooye. qof aanu marna tuun kaa gelin inuu yahay abaalmarinta cimrigii dheeraa ee aad soo qaadatay gabagabadiisa. qof magdhow u noqda wax kasta oo aad hore u soo weyday. dadka qaar ayaa kuugu imaanaya sidii in ay yihiin dhambaal cudurdaarasho ah oo ay noloshu kaaga raaligelinayso wax kasta oo ay hore kuugu soo samaysay. balse haddana saaxiib, waan dareemi karaa sida ay u xanuunka badan tahay in qofkaas uu qofkaagu noqon waayaa, iyada oo unug kasta oo jidhkaaga ahay uu dhankiisa aadayo, garaac kasta oo wadnahaaga uu sameeyaana uu isaga ku aadan yahay, atom kasta oo hawa ah oo sanbabkaaga galaana uu isaga raadinayo. intaas oo dhan kadibna aad ogaato in aadan sinimo qofkaas u heli karaynin maadaama uu jiro qof kaaga dheereeyey, oo aad ogaato qofka soo dibdhacay inuu mar walba safka gadaal ka galayo si kasta oo uu isugu dayo inuu soo hormaro iyo inuu yahay cidda ugu horeysa ee laga kaaftoomayo. aad ay u xanuun badan tahay inaad boos ku yeelato qof qalbigiisa laakiin aadan ku yeelan noloshiisa. saaxiib, mid ka mid ah imtixaanada ugu adag ayaa ah qof kugu dhex nool si aadan calfanaynin, adiguna aad dhaqaaq joogsi ka dhammaan weydo oo aad horena u socon kari weydo, halkaasna aad ku sii nagaan kari weydo. mararka qaarna wixii aad awood lahayd oo dhanba aad isugu geyso inaad isaga ku dhegto oo aad haysato, sidii in aad tahay qof qarqoomay oo gacan loo fidiyey isaga oo qiiqdii u dambaysa ku jira. mararka qaarna aad go'aansato inaad gacantiisa sii dayso oo aad ka mudhuxsato, maadaama aad garanayso in kuwa ay mahuraanka tahay inuu qofkaasi badbaadiyaa ay adiga kaa hormarayaan oo ay kaa mudan yihiin. kadibna aad gacantiisa ku sii dheganaan kari weydo, siina dayn kari weydo oo aad dhexda ku goosato, dhinacna aad u dhaqaaqi kari weydo oo aad mar naftaada uga boqdo inaad sii wadi kari weydo qofkaasi intaasi wax ka badan, haddana aad naftaada uga boqdo inaad sii noolaato adiga oo aan isaga haysanin. saaxiib, waxaa ku soo maraya marar aad u malaynayso inuu qofkaasi jidhkaaga kaaga dhow yahay, haddana waxaa ku soo maraya marar kale oo aad dareemayso inaad meero ku nooshahay isaguna uu meero kale ku nool yahay, badnaanta dalka iyo dadka idin dhexeeya awgooda. si dhab ah ayaad u dareemaysaa in aanu qofna kaaga farxinaynin siduu uu kaaga farxin jiray isagu, sidoo kale aanu qofna kuu dhibi karin siduu uu kuu hagardaamayn jiray isagu. ilbidhiqsiga aad la qaadataa waa janno, ka uu kaa maqan yahayna waa jaxiimo, balse waa janno aanay mar walba iridaheeda kuu furnayn. haddii albaabadeeda lagaa xidhana waxa kaliya ee ku sugaya waa cadaabtaas un. si aad macaanka taas u dhadhamisaana waa inaad qaraarka taas kale horta soo dhadhamisaa. weysayso, 2 ragcadoodna tuko saaxiib, gacantaadana laabtaada saar oo dheh, ilaahayow qalbigani gacantaada ayay ku jiraa, ee habadin jahwareer xasilooni la'aan ah oo uu saldhigan waayo, go'aanna uu qaadan kari waayo. ilaahayow calaamado wax ku tusi oo ishaarooyin wax ku fahamsii oo hanuuni, adiga ayaa ah rabbiga habowsanayaasha ee. waa walaalkiina Cabdixakiin Axmed oo idinla doonaya guusha labada daarood. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.